بسم الله الرحمن الرحيم waxaan ka hadlayaa maanta laba qodob oo gaaban mid waa war ka soo baxay jariyada saxaafad lagu soo qoray shalayto oo ku saabsanaa ciidamo qaatuma ay leedahay oo isu dhiibay ciidamada Soomaaliland arintaas waxaan idin sheegayaa inaan wax ka jirin ay been tahay sal iyo raatoona aan lahayn ay maradhaamo iyo uga dhigayaan ciidamadooda iyo shacabkooda maradhaamo iyo muxuu ahaa nafta inay ku maaweeliyaan haddii cidi goosatay kuwooda kala goostay haddii ay cidi kala tagtay kuwooda kala tegay waa wax la isku og yahay oo ka imanaya gudaha dalka muxuu ahaa Hargeysa iyo Burco maamul xumada ka jirta ee uu ku hayo Siiraanyo waxaan cadeynaynaa inay jirin wax ciidan ah oo halkan كتجي كانت تجي دونا وعيلة النور بعقلكيسا وقبائل ما أنت Somaliland ماشي أي مريسو مال عيد شوك تجيني كجوز تموي أنا عيد أوجوزن كرتو إنا يتهيئن كعيد وري بوقرنيسا جورنال كاس اللي هسه حسنا أرنت وانا كبين شيء وحنا نقول الله صحافته وكحد قد بي وحو قريانا وبين وي ومدنا وحفي عن إن وحو نفسن أو شراء لقاه الله وأن عبال يحمان لحدقة هاي سورة قالوا ما نقولنا أما نبقى قرين ميسو أما وحكو ترى ميسو وحن شرين شيء استيد وحن يدنا الله أقوين لا سكتا يبنت أقوريسان يعني سلك يراد كتونا لهاي مركا أنك كتبو وحن هذه أدوقح معي أما أن وقحنا هاي إن كستو أنو كارلوا معمولنا هاي كارلوا تجانا هاي dhibaatooyinka iyo dimuqraadiyad darrada oo Siiraanyo xisbigiisu ku sameeyay ninka leeyahay Cabdiraxmaan Cabdilqaadir shakhsiyan uma aqaan sawirkiisa arkay xiriir kale oo aan leenahay ma jirto isku maamul manihin laakiin dad ummadda Soomaaliyeed waa dhaqan wadaag waa walaalo waa ehel waa xigaal cid kasta oo maamul xumo ku samaysa ama cadaalad darro ka dhex samaysana in lagu eedeeyo ama lagu muxuu ahaa lagu loo sheego waxa uu yahay waa wax waajiba cadaalad darrada Siiraanyo waxayna haystay muddo 2 sano intii uu haystay baa dalka yagiiba ku soo duulay wuu qabsaday dadka yagiiba ku laayay barkadaha yagiiba fadhiya ceelasheedu fadhiya inkastoo oo dadka imika dhibtani ku wajahan tahay aanay ahayn kuwa ka qayb qaatay oo muxuu ahaa ka hadlay cadaalad darrada haysa haddana anagu maanta maadaama aanu aragno in iyaga cadaalad darro lagu sameeyo waanu sheegaynaa cid cadaalad darrada ku sameynaysa cadaalad darrada iyo dimuqraadiyad la'aanta iyo wixii ay barigii hore oran jireen waxbaanu ka qabanaynaa wax yani wax opposite-keedii oo cadaalad darro oo dulmi ah oo yani qeyr caadi ah ayuu ku sameeyay waana uga tacsiyeynaa dadka dhibtaas la gaarsiiyey iyadoo aad aragto oo ay muuqato ama war saxaafadeedkiisa hore sida uu ku cadeynay ay tahay wax midab kala sooca ama cid gaar lagu duulan yahay iyagana waxaan oran lahaa dulmiga annaga hore noo hayay idinka dulmigeedii saameeyay Allah idinka joojiya horta leenahay laakiin waxay ahayd sidii barigii markuu annaga nahayay sidii buu noo hayay inaad ka hadashaan laakiin waxa labada xaq darrada ku heshiisa xaqay ku kala tagaan bal waxaan filayaa inay qoysna dhaafahayn bahweynta Soomaaliyeed ku nool waqooyiga Soomaaliya cid walba in maamulka xumaantiisa iyo cadaalad darradiisu ay samayso qofku hadduu wanaagsan yahay ummaddu dhan buu wanaagsan yahay hadduu xun yahayna ummaddu dhan buu xun yahay dhib badan iyo cadaalad darro badan buu nagu hayaa waxayna ku noqonaysaa oo aakhirka uu la tegaya oo ku burburinaya oo ku baabiinaya waxa weeye kuwa muxuu ahaa maamule uu yahay maamulaha uu yahay isagana cadaalad darradiisa Ilaahay ummadda ha tuso kuwa uu cadaalad darrada ku sameeyayna ilaahay dulmiga iyo cadaalad darrada ku sameeyo si ka yasiran oo sida uu ku talagalay in uga dhigo ninka dhibaatada la gaarsiiyay waanu uga tacsiyeynaa waxa gaaray ilaahayna waxaan uga baryaynaa inuu caafimaadkiisa iyo ku soo celiyo xaaladiisa caadiga ah. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.